السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسن أصحابي ملكستو أتشوكتان كسو دوادا برنامج كيني لباد مانتو جمعان دي سو قد بنيو وحان إذا لايا مركلي جمعة مبارك أخياري تاريخ دو وحايكو بيغان تاي مانتا لبيو طبانكا سبتمبر سنة كالواكوني يشاني لباتان برنامج كينا قلب نمو waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay wixii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn qodobada barnaamijkan idinku waayo waxaa kamid ah Falastiiniyiin ayaa weerar Torrey ah la beegsaday Yahuud ku sugnayd magaalada barakeysan ee Qudus nagta ayaa laga saaray haddaba xaaladoodu waa sidee miyay wax ku dhinteen imisa ku dhaawacantay maxaa laga qoray kuwii weerarka qaaday xagee ahaayeen xagee ka yimaadeen بوليس كإسرائيل محيي راهدين تفاصيل كصابصة شكلاس برنامج كان كفافاهين دونا وعسو كله برنامج كان يدي كوسو قدبين دونا حماس أو يدونا وركسو صارتي وركا توري ذا نقتل وقصار يهودا كان عاي مقالة بركيسان قدس وعسو كله برنامج كان يدي كوسو قدبين دونا وركي وقدم بيجي حالة غزة قيبها الدمبر وحدكم مغلي دونتان dadkii nabadda u ololeynayay ee doomaha tirada badan watay ee ku sii jeeday Gaza xaalkoodu waa sidee warar cusub oo ka soo kordhay halka ay hadda joogaan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ayaanu warar idinkaga haynaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinaynaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena galabnimo maanta waa jimco wanaagsan meel kastoo aad naga daawanaysaan هذا برنامج كنا وحنا قبل بينا مقالة بركيسان قدس محاكا نعيمات قدس معلمها حالات دوا كسول على يهودي نكتا لغا ساريا معلمه رواتا ويدين رصاص لا بيكسدين ميل بسسكا لغا راعو قارب بدن لغا ديري كوا كلا لغا راوعي ما انتنا waxay ahayd maalin kale oo Torrey loo isticmaalay oo nagta laga saaray Yahuudi halka joogtay haddaba sida ay wax u dhaceen iyo warbaahintu waxa ay ka qoreen iyadoo maanta ay ahayd maalin Jimcaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa lagu tukanayay salaadii Jimcaha ayaa xadadkan ama dhibaatadan oo ay ka dhacday sida la leeyahay magaalada Qudus haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu ciwaan uga dhigay warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegeen goor dhaweyd laba qof inay ku dhaawacmeen oo mid yahay xaaladiisu khatar ay tahay howlgal Torrey loo adeegsaday oo markaa ka dhacay magaalada Qudus iyadoo howlgalkaana la sheegay in markaa uu ahaa mid uu fuliyay nin Carab ah haddaba booliiska Israa'iil ayaa waxay yiraahdeen waxa ku dhaawacmay laba qof oo la sheegay inay markaasi Yahuud ahaayeen waxaana la sheegay inay markaa ku sugnaayeen meel hotel ah oo ku taala magaalada Qudus kanaalka 12 la leeyahay ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa sheegay in markaa Torrey loo isticmaalay weerarkaas uuna fuliyay sida ay yiraahdeen nin Carab ah booliiska Israa'iil ayaa sheegay in dhacdadan ay la xiriirto dhowr dhacda oo isxigxigay oo ku saabsan xaaladaha isa soo taraya amni darrada sida ay sheegeen Qudus ka jirta haddaba wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan oo ku saabsan xaaladaasi in hay-adaha ammaanka ay sheegeen inay xireen dad markaa la tuhmayo in iyaguna arikaa ku lug lahaayeen haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in la xiray 3 qof oo la sheegay in markaa lagu tuhmayo inay howlgalka ku lug lahaayeen joornaalka la yiraahdo Israa'iil Huyum ayaa xaqiijiyay 3 qof in markaa xabsiga loo taxaabay oo la xiray iyo qofkii weerarka sameeyay sida ay yiraahdeen haddaba ciidamada waxay sheegayaan Israa'iiliyiinta in ay wadaan baaritaano kale oo ku saabsan arinta hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay leedahay ninka howlgalka fuliyay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo markaa ay ku tilmaameen inuu Carab ahaa hay-adda wararka Falastiiniyiinta ayaa waxay leeyihiin ninkaasi wuxuu ka soo jeeday deegaanka la yiraahdo Shufacaad oo ku yaala bariga magaalada Qudus warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin ninkaasi inuu ahaa Carabta Israa'iil ku dhex nool ee degan haddaba warbixinadu way sii socdeen waxaa la leeyahay in markaa ciidamada intaanay soo gaarin weerarka ay ka falceliyeen
kuwa loogu sheegay inay ahaayeen ilaalada hoteelka uu weerarku ka dhacay. booliiska magaalada qudus ee israa'iiliyiinta ayaa waxay yidhaahdeen dhacdadan tooreyda loo isticmaalay ee ka dhacday hoteelka in markaasi ay la xiriirto nacayb sinji sida ay leeyihiin. booliis fara badan ayaa la sheegay inay xoojiyeen ammaanka goobta shilka uu ka dhacay ee magaalada qudus. ilaa hadda tafaasiil fara badan oo arrinkaa ku saabsan oo kasoo baxay ma jiro sida la leeyahay. way marka waa arkaysaa waxaa leeyahay meesha nimankii nagtaa laga saaray mar walba, laakiin warbaahintu waxay yidhahdaan israa'iiliyiintu waxbay qariyaan, sida ay wax u dhaceen waxuma sheegaan. haddaba markii weerarkaa dhacay oo meel walba la ysqabsaday oo qayladu yeertay la yidhi waxa kan kusoo laalaabanaya qudus maxay yihiin, ayaa xamaas waxay soo saareen war ku saabsan siday u arkaan dhacdadaas. ururka xamaas ee falastiiniyiinta ayaa isaguna wuxuu hambaliyeeyey weerarkii ka dhacay magaalada qudus. haddaba xamaas waxay leedahay weerarkan waxa uu jawaab u yahay dembiyada iyo tacadiyada argagixisada israa'iil ay ku hayaan dhulka falastiiniyiinta ah. haddaba howlgalkan tooreyda ayay xamaas waxay sheegtay ka dhacay magaalada qudus inay mar kale u tahay dharbaaxyo cusub oo ku dhacday waxa ay ku tilmaameen nidaamka gumaysiga ah ee dadka dhibaateynaya. haddaba waxay sheegeen jawaabtani inay tahay mid dabiici ah oo mar walba ka dhalata carada dadka marka la dhibaateeyo. haddaba waxay yidhaahdeen waxaan ugu baaqaynaa jamaahiirta shacbigeena inay sii wadaan weerarada noocan ah oo ay mar kasta la beegsanayaan ciidamada israa'iil. way marka iyaguna way hambalyeynayaan, kuwaasna way qaylinayaan, waa la iska daba wareegayaa. xamaas waxay leedahay intaa kasii wada, sida a u wadaan meel fiicana ka wadaan leeyihi. shacabkeeniyow ka jawaaba dhibaatada iyo waxaa laydiin geysanayo, waxaad heli karto nagta kaga saar yahuudiga qabataan leeyihi. marka sheekadaasu halkaas ayay maraysaa. dhanka magaalada gaza warar cusub ayaa soo kordhay. haddaba telefishinka aljazeera waxay leeyihiin joornaalka la yidhaahdo yadacood axranood ee kasoo baxay israa'iil ayaa wuxuu qoray goordhaweyd ciidanka israa'iiliyiinta ee ku sugan gaza in ay markaasi kasoo darayso xaaladooda caafimaad oo dhanka maqaarka ah ama jaldiga ah sida la leeyahay. ciidamada waxaa la sheegay inay ka cabanayaan cudurro dhanka maqaarka ah kaasoo la sheegay in markaa uu kusii faafayo oo ay isqabadsiinayaan ciidanka. dhanka kale waxaa la sheegayaa wararkii ugu dambeeyay gaza ka mid ah. joornaalka yadacood axranood wuxuu leeyahay abaanduulaha ciidanka ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay fashil ku yimaada howlgalka cusub ee ay doonayeen inay ku qabsadaan gaza. haddaba abaanduulaha ciidanka ninka la yidhaahdo iyaal zamir ayaa wuxuu sheegay inuu aada uga walaacsan yahay howlgalkii ay maalmahan wadeen in uu u muuqdo mid fashil ku dhammaanaya oo aan xaqiiqdiisa iyo hadafkiisa aan la gaari karin sida uu sheegay. waxaana uu dhanka kale sheegay inay tahay in la xaqiijiyo mustawaha dhanka siyaasadda ah. zamir waxa uu sheegay in netanyahu smotrich ay qaraaraadka ay qaadanayaan ay tahay mid markaa culus marka loo eego ciidanka iyo sida ay dagaalka u galayaan. marka laba arrin oo muhiima ayay leedahay jaziira, way ka cusub tahay. barnaamijkii horena waa kusoo qaatay askarta jirkooda go-go-ayo maqaarka, weli waa jaziira waxay leedahay wuu sii xoogeysanayaa. midda labaad ee aanu hadda ogaanay waxay tahay abaanduulihii wuxuu qiranayaa fashil inay tahay. ushii casa muusa waa loo bareeri waaye waa macnaha sida muuqata howlgalkii ay la baxeen muqaawamada ushii nabi muuse calayhi salaam ayaa wuxuu sheegay ninkanu inay markaa hadda israa'iiliyiinta ciidankoodii waay ninkii ugu sarreeyay. wuxuu leeyahay ahdaaftii fashilay kusii socota. dhanka marka waxaan rabnaa smotrich iyo netanyahu iyo siyaasadda iyo howlahan iyo inay galaan macnaha meelaha isku boojeeyuu leeyahy dagaal, laakiin nimankan waxba looguma cunaayuu leeyahy. waa la duqeeyay, waa soo taagan yihiin, cudurraaba hadda askartii ku dhacaa la leeyahay. sheeko waalan ayaa iyaduna halkaa ka socota. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena galabnimo. waa galabnimo jimcaha
qaybtan waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah ee soo kordhay doonidii ama doonyihii iyagu is aruursaday ee kusii jeeday Gaza halkee hadda joogaan. wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray ayaan idinla wadaagayaa. telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay doomihii is aruursaday ee Asumuud ayaa hadda waxay gaareen dekad la yiraahdo Banzart oo markaa wadanka Tunisia ku taala, iyagoo u diyaar garoobaya safarkooda inay sii wataan. dooniyahan ayaa waxaa la sheegayaa inay yihiin doomo ay saaran yihiin dad kala duwan. maanta oo Jimcaha doomihii isla socday waxay ku nasanayaan oo ay gaareen dekad kale oo wadanka Tunisia ku taala oo la yiraahdo Banzart dhanka waqooyiga Tunisia. waxayna ka yimaadeen dekadii Tunisia ee la yiraahdo Saidi Bou Said, taasoo ahayd dekadii markii hore drone ay la sheegay inay ku weerartay Israa'iil ka timid. haddaba waxaa la yiri maalmahan hawada ayaa aad u xun oo markaa cimiladu ma wanaagsana dhanka iyo badda Mediterranean-ka sida la leeyahay, laakiin hadda waxaa la sheegayaa cimiladu inay sii wanaagsanaanayso, safarkoodana ay sii wadan doonaan. boqolaal ayaa ka qayb galaya safarkan, kuwaasoo ka kala socda 50 dowladood, kuwaasoo markaa iyagu isku ballansaday inay tagaan magaalada Gaza. waxaana la sheegayaa in berito subaxnimo Sabtida ah ay markaa koronyadu dhaqaaqi doonto oo markaa aanay jiri doonin meel kale oo ay ku nasanayaan ilaa magaalada Gaza, ama inay isfarasaari doonaan ciidanka Israa'iil oo iyaguna badweynta ku sugaya marka ay u dhawaadaan halkaas. haddaba 36 doonyadood ayaa waxaa la sheegayaa inay wataan dadkan u kala dhashay ilaa 50 dowladood ka kala socda. haddaba waxaa la sheegayaa inay dad kale oo iyaguna nabadda u ololeeya ay kor kala socdaan. dadka safarka hadda ku jira waxay u